wafdi hogaaminaya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mira Maxamed ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay duleedka degmada Ceergaabo waxaana wafdiga halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland barasaabka gobolka Sanaag qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka madax dhaqameed iyo xagarad iyo mas'uuliyiinta bahda ciyaaraha ugu horeyn waxa halkaasi kelmado soo dhaweyn ka jeediyay isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sanaag Muuse Saalax madax dhaqameed haween iyo sidoo kale xagarad waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirkii dhalinyarada ciyaaraha isagoo ka qayb galaya oo furaya diiwaangelintii uu socda hadeer diiwaangelintu socda soo dhawaan ku leenahay wasiir ku soo dhawow gobolka wasiir ku soo dhawow gurigaagii degmada Ceergaabo shacabka degmada Ceergaabo oo ilaa xalay heegana soo dhaweyntaada safarkaaganu wuxuu farxad gelinayaa dhammaanba deegaanka degmada Ceergaabo waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka ciyaaraha Yuusuf Mira Maxamed waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow magaaladaadii adigoo maxay ahayd u socda hawlgelintii diiwaangelintii wacyigelintii aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhawow degmadaadii Ceergaabo ku soo dhawow gobolka Sanaag waa lagu sugayay oo lagu filayay hawlo badan oo aanan kaaga maarmayn baa jira haddaan nahay odayaashii madaxdii gobolka wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha soo dhawow wasiir saacatul wasiir waa ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan ku soo dhaweynaynaa goolkan ku soo dhaweynaynaa hawsha aad u socoto oo maxay tahay baan kugu taageeraynaa waa ku garab taagannahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmadaadii Ceergaabo qalbi furan iyo gacmo furan adiga iyo mufuudaad hogaaminayso wasiirka oo u socda inuu maaragtay ka qayb galo diiwaangelinta waxaanu leenahay welcome home wasiir Ceergaabo magaaladaadii shacabkaaga aadna ugu baasatay wasiir Boss Mira Maxamed Nuux wasiir ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow gobolkaagii waxa weeyaan faataxyeelkii degmada Ceergaabo geestoodiguna waxa halkaasi hadal ku kala dambeeyay isla markaasina wafdigaasi soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Mustafa Maxamed Cali Bire barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Ismaan Xasan iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka Somaliland waxa farxad weyn maanta noo ah in halka ku soo dhaweyno wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir Boss Mira Maxamed Nuux wasiirka soo dhawow baanu leenahay in kastaad nagu raagtay wasiir oo aanu muddo ku sugaynay laakiin wad naga soo gaadhay inagoo aan wali bilaabin diiwaangelintii xafladii komishankana wad ka soo gaadhay soo dhawow wasiirka gobolka wasiir Boss Mire halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Boss Mire iyo wafdiga hogaaminayo waxaan leenahay saacad wasiir ku soo dhawow waxa kale oo iyagana aad ugu mahad celinaya salaamaya wasiirka maxaan ku dhahay cadaaladda oo muddo fara badan halkan u joogay hawlo qaranka wax badan intuu nala joogay gobolka maxaan ku dhahay soo kordhiyayna gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland Boss Mira Maxamed iyo la taliyaha wasiirka macdanta ee Somaliland Jaamac Axmed Cabdiraxmaan yaraba aad iyo aad baa horta ugu mahadsantiin soo dhaweynta waxaanu kala arinta loo socdaa maanta waa wada garanaysaa waa diiwaangelintii laba fariimood baan halka ka diray waxaan leeyahay Ceergaaboy maanta barbarkay ka dhacdaa waa bakayla laqeen maanta waa inaynu xuduudda codka muujinaa oo akaadhka qaadataan oo aan idin berito oran ka waanu yarnahay tiradayadii waa yarayd maanta akaadhkii idin dul yaala weliba mid miyi jooga iyo mid magaalaba joogaba fariintaynu keenaynu soconaa sanadka waxa weeyaan diiwaangelintii anigoo saan la socday og oo xogaal waa ina aad iyo aad u dadaaleyseen waxa la doonayaa dadaalka in la laabo kaadhkaas waa ka dhowto lagu kala adkaanaya waa ka wax ku noqonaysaan waa ka dhowto si aydaanu caban inaad iswada muujisaan reer Sanaag oo dhan baan marnabadii saddexaad u yeeriyaa